horta marka waa idin salaamaya salaan kadib shirkan waxa weeyaan midnimo direed dir oo maartay intaasna way kala maqnay oo maartay inay maanta ay midowdo oo meel ay joogto oo maxaan ku yiraahdaa tii oo hargeysa joogto tii Djibouti joogto tii Kenya Soomaali joogto tii Muqdisho joogto tii maartay oo joogto Nairobi joogto tii Ethiopia gudaheedii meelahan oo maartay Oromadaas ay ku dhaajirto inay dadka dibadii iyo dalka gudihiisa isku yimaadaan oo maartay midowaan dadka walaalaha saqoonin oo maartay Ilaahay wuxuu yiri wajahna shucuuba wa qabaa'ila li ta'arafu oo halkaas ay isku aqoonsadaan oo danahooda ay ka tashadaan ayuu shirka ma garatay waa gartay waxa inagu maqaala in Mustafa Cagjar oo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia uu sheegay in 90% shirkaasi uusan quseenin dadka dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia shirkaasna aysan ka qayb galin dad deegaanka u dhashay arrimaha sidee baad u aragtaa ma jiraan warkan Mustafa Cagjar wallahi Mustafa Cagjar wasfada ay ka wada laakiin in madaxweynaha oo mudan oo maartay oo ka mas'uula inuu ku hadlo arrimahaas ma soonayn laakiin qofka bini'aadanka idaan meesha ka soo geebgashay oo ku tilmaamay Mustafa uu yiri maartay dad ajnabi way arrintaas waxba kama jiraan waa arrin hal iyo saar lehen dadku waa dad deegaanka u dhashay maartay dadka hatta kibtu ku nool deegaanka ayuu ka tagay oo maartay waa gurbi joogto markii la yiraahdo ninka soo wadan buu ka yimid maartay marka dadka shirka meeshan ku qabsaday ma aha dad maartay ajnabi lagu tilmaamo oo wadanka ka yimaadeen lagu tilmaamo waxaan jirin nin weyn oo ku ceebo waa in la sheego ma aha marka arrintaas arrin aan maartay oo waxba maxaa loo qaadan karaa marka ujeedada uu ka leeyahay hadalkan isaga ka soo yeeray wallahi arrintaas waa nin mas'uula oo haddana aan ahayn qof jaahil oo mutacallima hadalkaas inuu ku hadlo marna ma habooneen war waqtigii la ismaleegayay mas'uul iska sheegayay mas'uulan jirin oo barbaqaadir iska fidanay maanta lama joogo ilka waxa leeyahay wadajir baa ku gooyaan aniga waxaan leeyahay Mustafa hadda meeshan adiga dhageysanayo aniga halkan ku hadlayo waa nin reer Ethiopia ahay ma garatay marka weeyaan qofka waxay hadhow dhibaato keeni karo inuu iska dhaafay ila wanaagsan marka arintaas Mustafa waxa leeyahay aniga inuu xaal ka bixiyo maanta ayaa ila quman haddii mas'uul yahay walaal maan anaga in duulaan kuma nihin dadna dir maanta dadna duulaaha in kala goymaysid qolaad u dhalanina qof kasta ilmo ninkii dhalay baa lagu magacaabay qolaad u dhalanina ma noqonayso dadka meesha ku wada kulmay waa dad Soomaali ah dirna Soomaali weyn qofkii oo abuwa awiye markuu haway ninkii leh dir maanta aqabayn ugu tahay oo maartay shirka ay meesha ku qabatay aqabayn ugu tahay hada leeyahay shir maanta dir maanta in duulaan kuma killin waxa uma dhibayso Mustafa waxyaalaha qaarkoodii waa inuu iska daayaa ma aha maanta waqtigii wadanka waxana haysatay oo dadka lagu gumaadi jiray oo qabiil waxa rab lagu sameyn jiray oo dadka بوليس لو صدر لحسو صدر جري ما تلمي جوجو مصطفى وأنا وليه حداد لذاي أنا مذاوينا إثيوبيا إثبتل وين بكتيرا إثبتل كاسنة كل كان بقول صو هايستي أمارا صو هايستي صدق سنتيكر صو هايستي أروما ما تلاقي كان توكلي أروما هنا وحلا خفصنه مصطفى عجر دنكيس وحكومة باقي إن دوان وذا قرش اللي حريرة ودولة إثيوبيا وكالات الشنايو إن جودي شروينا لوجو مقعدري كلن كصومالي ذا هالكا لوجو قبل دونه سيدا بعد واركتا شروينها أباب الكيد وذا مصطفى عجر صومالي شروي خمسين كرتا لكن أنا وعنو أركا شركاس إنه أمارتي وكبر برنايو شركة دريد وأمارتي أتصور وقبتي أنا وحنا كل شيء يا إثيوبيا ما تثبت البعض باكجرا فرصة بعض باكجرتا إن ما نقول هذا إن فرصة أنا كجرتا بيامانته نكستا إنه كفايدة أيال الربع ساعدان هذا المرة وساعد لي سقف سنة أيو ومسؤول لسك شيء أيو وواحد جرين وما بيشكل لما جو
وهوي ما دام قفك مسؤول وياي وكل وياي إنه ما أعرف ليش عن قاضو ودولة الفدرالية إنه لصعود وياي misku dayay Mustafa Cagjar in shirkan iskoor istaag uu ku sameeyo عاديات كانوا غصبين وبدو أود أو لا أبدي زي نقول شركة غصبين يسكودي مثلا dadka maaragtay walka dadka walaalaha wada dhashay qaar baa maaragtay adiga dadweyne ma dagaal lagu soo qaaday oo maaragtay dhibaato badan laakiin ama maaragtay kama qal ugu dambeyn gabagabada waraysiga ayaan isla soo gaarnay maxaa ayaad u soo jeedin lahayd Mustafa Cagjar wallahi anigu Mustafa Cagjar waxaan soo jeedin dadkaadi adayda sama waxaan ku leeyahay arrintan inuu raali gelin oo ka bixiyo shacab waxba laga qaadi karo dawladdu ma tagayso mooyeen shacab maanta hadaad heltid hadaad dishid hadaad wax ku samaysid inta ka hartay ma wax qabanaysa marka niman barbagaamka waday oo ma waxba qiimaan lahayn oo wax jireen isku dirayaan Soomaali diraaday wax tahay dhimashaday wax tahay way soo martay way aragtay marka dadka maanta saan ugu shaqeyno gacmaha soo qabsano maartay nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa wax kasta in laga wada shaqeeyo loo baahan yahay maana in waxaan jirin aan ka shaqeyno anaga shaqadeena maaha marka walaalkeen waxaan u sheegayaa inay ummadda maaragtay oo karageliye ayaan u sheegay ma garan kaasina waxa uu ahaa boqor Maxamed Nuur Isxaaq oo ah boqorka beelaha direed kuna sugan magaalada Addis Ababa waxa uu igu waramayay qadka teleefanka